يا في حاجة جعل أنا صاحب تاني كنا خراب واحد تبي هجلي خذوا بدل نفسك بل إيش بني آدم كوا عتشي وبرهو إسكتوا قرطاس طعام حد من ساعة 11 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب هرو مدة إسلام كعاد بانو سلامية يسوع مالي ده سنة الأسبوع ونكسب بان له لوضع كنيو سقالي طبعا وحكروا عن سجود هاني يسقار هاني دو سلامية كوحدة تحديقة هجيس كده ما سيدوديين قدومية محمد حبك هالعشرة مصطفى سليمان حمد الله إبراهيم فرنلي أضيق كوحدة حسن سليمان دحول أنت هسمركن كسو قدبو وحن سنة كان عصبي هرتاني وحي لي سامي وين أو mid bini'aadamku si toos ah u dareemo because of waxaan ka gudbay marxalad ah muxuu ahaay singalnimo waxaanu iga soo gudbiyay tii kale ee caadiga ahayd dadka yar waaweyn ma fahanti marka sanadkan xusuus gaar u leeyahay dhammaan family-ga hooyadii aabaha iyo family-ga aad baan u salaamaya iyo sidoo kale xaaskayga Aashkoos oon leeyahay halkaas aan ka soo salaamaya odayga yarkaya waa tahay Aashkoos anagana waan salaamnay iyo dhammaan xigtiga geeska waxaan rabaa kelmadina ku weydiiyo haddiiba aad sanadkaas xusuus kugu yeeshay oo aad ka gudubtay marxalada aad u adag dad badan ku hareen haddii ay ku tirada Aashkoos waxaan rabaa hadiyad qaali ah oo aan sanadka dhan iga dhaqan January koodii keentay oo ilaa arsubax walba indhaha saaro igu cusbaan iga dhacayn hatiin doortu waa hadiyad aad iyo aad u qaali ah laakiin waan ka xumahay malaha message aan ugu diraya idinku miyad ila ka warama waxaan noo hayaa hees la yidhaahdo Dhoof iyo Jacayl run ahaantii waa dareen amba dee wax bulshada mar walba ku jira waxa weeyaan oday waxaan caawa kala reebayaa odayaashii waaweynaa iyo hablo yaryara oon leeyahay dee horta ilaahay baa idin baneeyo 2 iyo 3 bood guursan kartaan haddaad lacag haysataan iyo haddaad qurbaa ka timaadeenba laakiin dee baaqigii wax sugoo horta yaryarka isku daayaan leeyahay marka heestan waxaa la yidhaahdaa Dhoof iyo Jacayl hablahana waynu canaanaynaa waxaan leenahay deniyo waqtigiina ha dhaafina odaygana waxaan leenahay nagu soo degdegna markaa haysta waa sidaas markaa heestan Dhoof iyo Jacayl baa la yidhahaa erayada waxaa lee Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax laxankana waxaa la walaalkay Maxamed Saciid BK sidoo kale muusigana waxaa ku farayeystay waa isaga Axmed Ibrahim Farnle Ciltire yes waa tahay bal Dhoof iyo Jacayl iyo mar kale Aarshe Dhoof iyo jacaylkii lagu galay dhaqaalii danta loogu dhunto oo adiga ay kala dhimay iyadana tuqdali kara horidiisa uga dhigay Dhoof iyo jacaylkii lagu galay dhaqaalii danta loogu dhunto oo adiga ay kala dhimay iyadana tuqdali kara horidiisa uga dhigay naftaanu dhibay naftaga ataanu dhibay kul haduu dhammaad yahay jacaylkii dhisnaan jiray adna dhabka tahay dhaxlintiisa waayeel kugu dhorto waysada maxay dhaqasho ku tari naftataanu dhibay naftaga ataanu dhibay kul haduu dhammaad yahay jacaylkii dhisnaan jiray adna dhabka tahay dhaxlintiisa waayeel kugu dhorto waysada maxay dhaqasho ku tari dadigaaba qaarkood shalay ruux ku dhiiraa iyagoo u dhiman jiray maxay dhaafsadeen shilin
بقاركود شلي روح كوديراي يقود من شري حيداف سدين شيلين حيداف سدين شيلين ما حيداف سدين شيلين دايها جمالكي وفتو بندونيكو وحكالينا دادي أمر هدان ديبين أوشيب كودي ما يهي دوية دميان دالي دايها جمالكي وفتو بندونيكو وحكالينا دادي أمر هدان ديبين أوشيب كودي ما يهي دوية دميان دالي عدو وعد كامل ليقي وعد كامل ليقي علفكا دماديو قرالكا سيدا ديقي عدور دارك ديقتوي وحد عايلاوي أدنى دافوحي تيقي أدنى دافوحي تيقي دافوحي تيقي عدو وعد كامل ليقي وعد كامل ليقي علفكا دماديو قرالكا سيدا ديقي عدور دارك ديقتوي وحد عايلاوي أدنى دافوحي تيقي أدنى دافوحي تيقي دافوحي تيقي الدقة بقاركود شلي روح كوديراي يقود من شري ما حيداف سدين شيلين داف سدين شيلين ما حيداف سدين شيلين الدقة بقاركود شلي روح كوديراي يقود من شري حيداف سدين شيلين حيداف سدين شيلين ما حيداف سدين